سلامي يا إخواني وأخواتي. waxaan ayaana haysta maanta qabowgu waxuu maraa meel la leeyahay yaan guryaha laga soo bixin. lama arag lama maqal waxa meeshan ka dhacay. aad iyo aad ayay maaragtay halis u tahay maanta. waxa kastay tahay waa dalkoodii ayay ku joogaan, waa dad dalkoodii jooga, ama ha u qaboobaado ama ha u kululaado, dalkooda ayay joogaan. ka waran meeshaas barafkaas saasa oo qabowga oo naftu macnaha inay kaa dhacdo qarka u saaran tahay, ayagoon koronto lahayn, ayagoon waxa isku kululeeyaan lahayn oo dabka shida jiray qoryaha ayaa awoowayaashood ku noolaa jiray. annagana ayadoo ilaahay leyrna siiyey, faraxna siiyey, hawona siiyey, dabaylna siiyey, carro macaan la iska seexanayo na siiyey, geedo qurux badan oo carfaaya oo caafimaad leh oo miro leh oo wax kasta leh ilaahayna siiyey. xoolo kastana ku dhaqan karno, beer kasta aan ka fala karno, sidaan rabna aan ugu noolaa karno. qabow inaan u baqtino na dilo aan ka cabsanayn, kulayl inuu na dilo aan ka cabsanayn. haddii biyo aan qodanayno ee dhulka hoostiisa iska joogaan ayaa maaragtay nin iyo koox cimrigooda dhammaaday oo diintoodii iibsaday ayay waxay doonayaan inay ku siiyaan dad si sahal ah oon la arkin oo la maqlin, oy diintii uga baxaan oo baadari iyo kiniisado inta tagaan ay gacanta u horsadaan, aamiin dhahaan. ilaahayda ku dhaarshay qofkaas madiinow leey. qofka inta kiniisad tegay oo nin kirishtaanka baadariga u tegay oo u ducaynayo oo gacanta hoos dhigtay ee aamiin dhahaya, bal ninkaas ka warrama maxaa lagu tilmaami karaa? weligeed ma dhicin in qof Soomaali intuu tago meelahaas oo kale ama waxaas oo kale oo gaal ka daba dhaho aamiin. laakiin maanta wax walba ay dhacayaan, wax walba ayaan arkaynaa maanta. akhlaaq darradii oo bannaanka taal, wax kaste oo dhaqankeenna iyo diinteenna iyo akhlaaqdeenna iyo qiyamkeenna ka soo horjeeday oo ku kacaynaa maanta. sababtoo ah damiirta ayaa dhimatay. waxaa dhimatay damiirtii, dareenkii, dadnimadii ayaa dhimatay. 40 sano 30 sano ka badan ayaa dadkan damiirkiisa la dilayay oo wax walba lagu dilayay oo dhan walba looga dayay oo si walba loo gelay oo damiirka laga dilay way dhinteen. xal waxaan dhageysanayay waxay Muuse uu saxiixay heshiis ku sheegahay ayaan maqlay, ayaan dhageysanayay maanta. xalay ninka hadlay ayaan dhageysanayay oo kuwan adii la shaqeeya kamid ah. wuxuu yiri anagu waxaan rabnaa uu yiri 99 sano in dhulkaas iyo baddaas nala siiyo, badda laga soo bilaabo ilaa xuduudda Itoobiya dhexdeeda intaasoo dhan dhulkaas nala siiyo
99 sano hadda wuxuu yiri waxay ogol yihiin 50 sano wuxuu yiri waa laba generation uu yiri laba generation macnaha waa iska caadi laakiin ma ana rabin 4 generation ay rabeen bal fiirshay ilaahay ku dhaarshay 4 generation inay ku beeraan oo ku dhaliyaan marka cunuga meesha ku dhasha oo isku dhashay oo kaabka uu ku dhashay hadhow 400 sano ka bacdi 200 sano ka bacdi ma ka yeelaa dhulkan adigu mali عقل أيال لو باهي عقل أيال لو باهي وضي قرودة أو دور سدي ودينتي أقبح حي وحاس يدلك يسيب كويب سدي إيوه أخلاق دي سي وحش عنها يا ماها صوماليا ومدى صوماليات ورددك كعب ورددك كعب لحدي إنك وحا كتشرة جوشية دين هذا تقول على ميسان جوشية قبيل هذا كله على ميسان جوشية دنتينو حيكون شرطة مدن مدينة دنتينو وحيكون شرطة هدينكو إصلاحة دنتينو وحيكون شرطة هدينكو ميدونا واحد كلا دن لينهين يوح كان هدو دمو كان كلا نوا دمو كان هدي لقميس كان كلا نوا لقميس ما جبت كان يا قبيلي يا كان هيغل نو حاس واحد رمى فدق على ركعة مدى الصوماليات فدق على ركعة سيدا على اسكو دعمة دالكين هلا دفاعه عندها هلا فرق dad badan oo nool ayaa jira wali meel wuu jooga laakiin banaanka loo istaago maanta ma ahan waqti gadaal la isku dhaw ma ahan insha Allah taala halkanaga waa inaan difaacnaa waa inaan midownaa waa inaan iska qabanaa oo xirnaa qof walba oo dalka qarannimadiisa u hoosaasinaya ama af ha ku taageero ama gacan ha ku taageero ama ha hadlo ama oday ha ahaado ama wuxuu rabaa ahaado waa in la xiraa sharci laga qaada sharci inuu dalka difaaciisa waa waajib qof looga heebaysanayo ma jiro qofka rabta ahaw madax ahaw oday ahaw shakhsi ahaw dumar ahaw qofkii wadanka qarnimadiisa oo laalaya hala xiro mar dambana yuusan hadlin afkana laga xiro waa idin salaamaya ya ikhwaani wa akhwaati qabow xumaa jira lama hadli karo waa salaam